madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo safar ku marayay deegaano hoos taga magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa waxa uu ka warbixiyay abaaro ka jira deegaanada Puntland. warbixina muurtaas ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Nadiif Shire. wafdigan oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland ahnaase ayaa xilka madaxweynaha injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa booqasho qaadatay muddo kooban waxa uu ku soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka ayaa kulan kooban la qaatay maamulka degmada Qardho iyo kan gobolka Karkaar iyagoo ka arrinsaday arrimo kala duwan oo ugu weyneed abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Puntland. cabdisiciid cismaan duqa degmada Qardho iyo cabdiqaadir siciid carsha dhaqaajo gudoomiyaha gobolka Karkaar oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa waxayna ka warbixiyeen xaaladaha gobolka iyo tan degmada. ilaahay soo harjeey roob khayr qabo inuu keeno mid waa taata labaadna waxa weeyaan xagga deegaanka runtii meesha halkan waxa weeyaan soonaha uu ka baxo galoolku waxaana farakul ku haya dhuxulaysatada hadda koor waxa jirtay in ciidan deegaan laga dhawaajiyay oo loo sameeyo Puntland xarunteeda noqon doonto magaalada Qardho maadaama ay tahay meesha ugu galoolka badan dhuxusha laga shido marka iyadana waxa codsanayna in iyadana si degdeg ah ciidankii loogu talagalay deegaanka iyadana in naloo keeno magaalada Qardho ayaan codsanayna. faraxsanahay madaxweyne booqashadaada iyo maatinkaaga gobolka ay ku soo dhawoobaan leenahay soo dhawow guud ahaan gobolku bilihii u dambeeyay madaxweyne alxamdulillah xagga amniga wanaagsan la wada socono roobkii dayrta ahaa dayrtii dhaweyd la filayay gobolka gabi ahaan ka badin meel yar yar ma ahaan kale xagga abaarama sida kale alxamdulillah xaaladu dhagdhag weeye waa fiican yihiin. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland injineer Camey ahnaase ayaa xilka madaxweyne ayaa dhankiisa hadalada qaatay. hawlahan aad ka wada hadasheen labadiinuba runtii waa hawlo jira kulli dalka intaanu hadda soo soconayna waa arkaynaa abaarta marka waxaad ogaataan inaanan hawshan iyada runtii kana seexan ee aan ku hawl jirro waxaan rabnaa si xawliyana in loo galo muxuu ahaa berritana waxay leeyihiin shir waxaa imanaya ninka ugu sarreeyo ka imanaya meesha la yidhaahdo dhinaca humanitarianka oo imanaya Garowe iyagoo dhanna wasaaradda qorsheynta ayaa shir loogu qabanaya insha Allah hawshaasi si xawliyo wanaagsan waa u socotaa. madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa u sii ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas ay u tagi doonaan hawlo shaqo. booqashada tan ayaana ku soo beegmaysa xilli maalinimada berrito ay qorsheysan tahay in deegaanada Puntland ay ka dhacaan salaada roob doonta. Maxamed Nadiif Shire, Somali Channel, Qardho.